Muuqaalkan waa muuqaalkii kor u qaadi lahaa xirfadaada video editing-ka. Editing styleskan marar badan waad ku aragtay aaladaha YouTube iyo TikTok, laakiin aad weyday qof kuu sharxa si degan oo kaa jaahil bixiya. Balse haddii aad daawato muuqaalkan bilow ilaa dhammaad waad baran doontaa dhammaan waxyaabahan. Si aad u practice garayso, waxaan kuu soo dhigay Telegram channel-kayga, linkigiisa description-ka ayuu yaalaa, halkaas kala soo deg dhammaantood. Waxaad soo qaadanaysaa laba muuqaal oo noocan oo kala duwan. Kadib waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas. Marka ay halkan ku keento, waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ay qoran tahay slide. Animation-nadan marka ay ku soo baxaan, waxaad dooranaysaa animation-ka ay qoran tahay page turning. Midkaan aan dooranayo. Kadib calaamadan, haddii aad rabto si smooth oo degan inuu ku soo baxo, cabirkeeda ayaad wax ku daraysaa. Haddii aad rabto si fast ah inuu ku soo baxo, cabirkeeda ayaad gadaal u celinaysaa. Labada choice midkii aad rabto ayaad ku samayn kartaa. Transition-kii aad ku soo darsatay mar labaad dul tag. Kadib waxaad dooranaysaa qaybtan nan oo iska soo tirtir. Si aan kuu tuso transition-ka labaad qaab loogu soo darsado, muuqaalkan ku dul dhufo. Kadib waxaad dooranaysaa qaybta animation. Waxaad ku daraysaa animation-kan. Isna waa isla sidii cabirkan. Haddii aad rabto si degan inuu ku soo baxo oo smooth ah, cabirkiisa ayaad dheereynaysaa. Haddii aad rabto cabirkiisa si fast ah inuu ku soo baxo, tirada ayaad gadaal u celinaysaa. Muuqaalkii hadda ku dul dhufo animation-kan ku soo daraynay. Kadib qaybta animation tag. Waxaad dooranaysaa qaybta nan iska tirtir si aan u sameyno transition-ka labaad. Transition-ka labaad waxaad ku dhufanaysaa add overlay. Kadib waxaad soo qaadanaysaa, tusaale ahaan waxaan soo qaadanayay loogada YouTube-kan ayaan soo qaadanaya. Kadib si aan ugu tirtiro background-ka oo dhinacyada ka leeyahay, waxaan tagayaa qaybta remove background. Kadib markaan soo tirtiro, waxaad dhigaysaa halkan. Kadib qaybta ugu horeysa keyframe ku qabo. Keyframe-kood marka loogada dhinacan geli. Xoogaa keyframe-kood ka fogow. Keyframe labaad ku qabo. Keyframe-ka labaad soo saar, dhinaca kale u gudbi. Marka loogada marka ay dhaxda ku aadayso, marka ay soo baxdo, iyo labada keyframe dhaxdooda waxaad ku qabanaysaa keyframe kale. Kadib loogada zoom ku soo samey, shaashadoo idilkooda qari. Waxaad soo qaadanaysaa laba muuqaal. Labada muuqaal markaad soo qaadato, waxaad ku dhufanaysaa muuqaal koowaad midka labaad ku dul dhufo. Kadib waxaad halkan ka raadinaysaa qaybta ay qoran tahay freeze. Qaybtan markaad ku dhufato, qaybtan yar ee noo jarantay waxay noqotay sawir. Markii hore waxay ahayd video, balse hadda waxaan u bedelay sawir. Marka si aan hoos u keenno, waxaad halkan ka raadinaysaa qaybta ay qoran tahay overlay. Kadib hoos ayuu ku imaanayaa. Mar qaybtan dambe iska jar ee waxaad leekeysiinaysaa cabirkiisa qaybtan ugu horeyso muuqaalka leekeysiin. Kadib waxaad raadinaysaa qaybta ay qoran tahay remove background. Background-ka tirtir. Kadib sawirkii aan hoos keensanay ku dul dhufo. Qaybta ugu horeysa waxaad ku qabanaysaa keyframe. Qaybta dambe tag, iyadana keyframe ku qabo. Mar keyframe-ka koowaad u soo laabo, sawirka hoos u celi. Markaad hoos geyso, haddana cabirkiisa hoogaa yareey. Markaa intaas sameyso, waxaad ku dhufanaysaa qaybtan graph. Kadib waxaad ku daraysaa graph-kan. Markaa intaas sameyso, waxaad tagaysaa qaybta effect. Kadib waxaad ku soo darsanaysaa shake effect-gan. Effect-ga markaad ku soo darsato, cabirkiisa waxaad dhigaysaa halkan dhig. Kadib waxaad sameynaysaa mar labaad ku dul dhufo effect-ga. Waxaad dooranaysaa halkan ay qoran tahay object. Kadib all video ka sii dooro. Markaa intaas sameyso, effect-ga qaybta ugu horeysa keyframe ku qabo. Keyframe-ka markaad ku qabato, tiradan cabirkeeda waxaad geynaysaa 11. Middan labaadna waxaad geynaysaa 14. Mar keyframe-kood iskaga tag, qaybta dambe tag, keyframe kale ku qabo. Labada tiro waxaad geynaysaa 0 gey. Mar kale waxaad tagaysaa qaybta effect. Waxaad ka sii dooranaysaa halkan ay qoran tahay distortion. Kadib waxaad dooranaysaa effect-gan ay qoran tahay replace. Effect-gan markaad ku soo darsato, wax kale ku sameynin. Kadib waxaad dhigaysaa halkan.
Waxaad tagaysaa gallery-gaaga, kadib waxaad soo qaadanaysaa overlays-kan. Overlays-kan markaad soo qaadato, cabbirkiisa shaashadda la ekeey. Kadib waxaad tagaysaa qaybta ay qoran tahay Split. Waxaad kasii dooranaysaa qaybta filter ay qoran tahay. Marka uu qaabkan kuu noqdo, ku dul dhufo mar labaad. Waxaad tagaysaa qaybta ay qoran tahay Duplicate, copy garee. Kadib is hoos dhig.